halkan waxa ay hoy u tahay in ka badan 25 qoys oo kamid ah qaxootiga ka yimid jasiiradda Zanzibar ee Muqdisho ku nool qaarkood qaxootigan waxay guursadeen haween Soomaali ah kuwaas oo nolol idhaqa wanaagsan ee ku wada joogan sanado badan laakiin hadda caqabado ayaa soo wajahay qaxootigan ajaanibta ah ee ku sugan Muqdisho ma haystaan kaarka aqoonsiga qaxootiga ee dawladda saameyn ayuu ku yeeshay kororka howlgallada ciidamada ammaanku ay ka sameeyaan Muqdisho waana halka ay kaga timaado dhibaatooyinka ugu badan ee haysta xilligan sida uu sheegayo Mas'uud oo kamid ah qaxootigan ahna aabaha 4 caruur ah oo ay u dhashay gabar Soomaali ah isla markaana ay dhowr jeer qabteen ciidamada ammaanka ala kulli hali ana inta sagale to ban sana joga ala kulli hali warba ID ko hoti wa sababu magalada sona ID laani maqul ma hata niga mesh jitka tolbo somara askari kale ali ente kemate niga Zanzibar wa ko hoti wa sagale to ban sana inta joga niga maga nagan so inta so fariso ana lefte wakti dere ana jitka iskosko ladaki waifadi wakti dere ana lapo akadana lapo ko hoti wa hele dat sahib ka isi reshen kado wakti wa kena gurga bajaji skadij alap kuli skadi gidulka wadiga dulka kibada diga inta imao wali digi meshi sede samal waisode masjidkan ay ka dhex dhisteen xiradan ay ku nool yihiin ayay ku cibaadaystaan waxay ku qasban yihiin inay ku logoyaan jid cadayaasha iyagoo ka taxadiraya in ay la kulmaan howlgal socda ama goob uu dib ka dhacay kadibna la xiro qaarkood maba ka baxaan xiradan iyagoo xaasas Soomaaliya iyo caruurna ay biil ka sugayaan kadib dhowr mar ay laamaha ammaanku xireen aqoonsi la'aan darteed absana sidee mar ay qabtay aqoonsi ku weydiina aniga aqoon Soomaali aqoonsi ko haya ka tusaa ku kan aqoonsi maaha anaga inta jooga malin baahan kala sabka inta hadii soo baaho meesha banaanka laami dukaan inta dhow bas markale maadan qaar ka mid ah haweenka Soomaaliyeed ee guursaday dadka ka soo jeeda qaxootigan Zanzibarka ayaa dawladda Soomaaliya ka codsaday in kaarka aqoonsiga la siiyo qaxootigan oo si wanaagsan u dhaqan fahmay Soomaalida walaaleen Soomaalida waxa qoonsanayna iyo hay'adda waa dadka qaybsan aqoonsiga oo si nadiiftan u sameeyo dheer ninkan awlaadis waxay cunaan uraadsi qaro shaqo mu aad qaro walaa magaalada soo qaraabana inta oo ma bixi qaro aqoonsi keena lu xijina aqoonsi meesto maxaa ninkii qaraab ku dooro oo intii la xiro waxa xiriyaan u dhaw maxaa sameynay oo xabsi la geeyo aan gabar Soomaaliyeed ay caruurtaan u jeedina aniga dhalanay sooray dhalay ilaaha calfi ugu daray maadaama ilaaha calfi ugu daray ninkayga maxay doonan haysan hadda aqoonsi Soomaali aqoonsi qaxooti waa aqoonsi nima helin 19 sano wadanka Soomaaliya oo jooga dagaaladii la halaan wadanka Soomaaliya oo jooga ku codsanayna in aqoonsi qaxooti noo la sameeyo anagii awlaadana qaarkood qaxootigan Zanzibarka waxay Soomaaliya ku nool yihiin in ka badan 20 sano dawladihii dalka soo marayna kama aysan helin wax aqoonsi ah laakiin waxay ku shaqeysan jireen gudaha magaalada hadda waxay u baahan yihiin kaarka aqoonsiga qaxootiga si ay magaalada ugu shaqeystaan maadaama ciidamada ammaanku ay sare u qaadeen howlgallada ammaanka Maxamed Ibrahim Bulbul Universal TV Muqdisho